barnaamijkii loogu talagalay marwa faynuus sheekh daahir gobolada waabari gaar ahaan ciyaartooyda hidaha iyo dhaqanka wax badan ayay noo diyaariyeen balse waqtiga oo aan laga gaareen ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa dhinaca hadallada ayaa bilaabanaya haddii dad badan laga tagay fadlan raalli ahaada faynuus sheekh daahir baryahan kuwa jooge xaflado badanna waa loo qaban doonaa ugu horreyn maarayi iyo golaha murtida iyo madadaalada abwaan cabdidhuux ayaan ku soo dhaweynayaa si uu kelmadihiisa halkan ugu jeediyo cabdidhuux ku soo dhawow wasiirka haweenka honoreeqoda khadiija maxamed diriye iyo wasiir ku-xigeenkeeda guddoomiyaha haweenka ee gobolka banaadir marwo jawaahir baarqab oo aan wax badan isa soo marnay maareeyaha golaha murtida iyo wacyigelinta mudane cismaan cabdulaahi guure guddoomiyaha abwaaniinta soomaaliyeed mudane xirsi dhuux maxamed marti sharafka kale oo uu ka mid yahay abuukar mahdi oo aan uga aqaano muxuu ahaa aan ku aqaano fanka iyo london iyo wiilka aan adeerku u ahay oo ina cantarnaaji ah iyo fanaaniinta soomaaliyeed dhammaantiin iyo intii aan ka tegey dhammaantiin qof walba halka wuxuu ku fadhiyaan ku salaamayaa waxay ila tahay waa daalantihiin qoladiina safarka ka timid inkastoo annaga naftageedu aan daalannahay waxaa yeele dayuuraddu waa lagu daalaa halkanna muddo badan baad fadhidaan waa idiin soo gaabinaynaa faynuus sheekh daahir xaaji maxamed sheekh cusmaan ayaa ku soo dhowaynaynaa halkan oo ka mid ahayd xidigihii fanka soomaaliyeed ee halkan tiyaatarka iyo dibaddaba wacdaraha ka muujin jiray waxaan leenahay faynuus soo dhowow waa tiyaatarkaagii waa fanaaniintaadii maanta waxay ila tahay inaad faraxsan tahay annaguna imaatinkaada waa ku faraxsannahay aad iyo aad baan idiin ku soo dhowaynaynaa dhallinyarada kaleoo kula socoteena sidoo kale way kula qabaan soo dhowaynta iyo farxadda sidaa daraaddeed intaasaan ku soo gaabinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waatahay si aan u dadejinno dadka oo badan awgeed guddoomiyaha golaha abwaanada xirsadoox السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزيرة خديجة محمد ديرية حلبانات سينب ومحوها أن آدي آدو فرح صنعها إني سكلي سنوغوتي مدايدنا قدوميها جواهر بارغب مارياشا تياتر كأوكرة دنبيه ماريا كحيجينا دمان فنانين الصوماليات ولاشين قبضنا فنانات دينا حدقتنا بالله كاني فنك الصوماليات oo wax alla wixii koob meeshan aan la jiray ayada muxuu ahaa dadkii keenay koowka faynuus sheekh daahir waxaan dhammaanteen dawlad iyo shacab iyo fanaaniinba kugu soo dhawaynaynaa dalkaadii hooyo ee Soomaaliya waxaan ku leeyahay soo dhawow timidaha noqon baan ku leenahay qabowgana ha u noqonin timidaha noqon baan ku leenahay timidaha noqonin waa sida abwaanku u yiri waa dalkaadii hooyo waa dalkii hawada macaana waa dalkii cuntada freeshka lahaa waa dalkii khudaarta badnaa waa magaaladii dhirta ee Muqdisho soo dhawow waa ku faraxsanahay muddo dheer ka bacdi inaad timaado tiyaatarkii qaranka meeshii aad joogi jirtay adigoo gabar 18 jir ah soo dhawow aad iyo aad waqtigu waa yar yahay dadkuna waa badan yahay martida sharafta leh wasiirad khadiija waxaan si gaara kugu mahad celinayaa
inaad u istaagtay muxuu ahaa hawsha soo dhaweynta aad iyo aadna u mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقتك ويري هاي سيدات إن أن كفاية سنو وأكو خصبنا هاي وقتك بلادن أو بريان بانسويني أو أي هو جامين هيسو ولا شينا فينو شرداهر أبوكر مهدي أبوكر أنور أحمد ناجي سعد waxaad joogtiin gurigiina dalkiina dadkiina la joogtiin haddii la maqli jiray hebel iyo hebel dibadda ay aadeen inay ka soo noqdaanna waa diideen arrinka astaanta koowaad u naqda dalkooda ay aadeen inay ka soo laabtaanna way diideen wasiiradda haweenka gudoomiyaha ururka habeenka gobolka banaadir wasiir ku-xigeenka maareeyaha golaha murtida iyo madadaalada qaranka dhammaan odayaasha abwaaniinta fanaaniinta dhammaantiin waxaan idin leenahay waad ku mahadsantihiin sida aad uga guulaysateen soo dhaweynta martida sharafta leh. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudana maareeye abwaan عثمان عبد الله قوري سودو وابوان سعبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. آدي هذا يا نو فرحتنا إيمانتا مقدشة ونبضة إن أكون سودو وينو فيروز شيخ داهر وأكون فرحتنا waxay la tahay maanta muqdisho waxay ahayd markii ugu horeysay ee ugu fiicneed in lagu soo dhaweeyo aad iyo aad marka Fayruus Sheekh Daahir muqdisho waxaa timid ayadoo nabadana waa ay kugu dambaysay marka waxaan rajaynaynaa shalay markaad ka tagaysay waa aad ka xumeed duruufaana ka waday kama tagteen laakiin maanta ayadoo nabada iyo anagoo ku faraxsan inaad ku soo noqoto ku soo dhawow waa kugu soo dhaweynaynaa waxaan kaloo soo dhaweynaynaa Abuukar Mahdi Abuukar oo bahda fanka ee dawladda u baxda oo ay amaantiisa loo keenaan markasta soo dhaweynta iyo fanka soo u garab taagan yahay waa ku faraxsanahay waa la soo gaaray akhbaarkaada waxaan kaloo soo dhaweynaynaa Anwar Ahmed Naaji waxaan ku leenahay laftirkaaga waxaan kugu soo dhaweynaynaa aabbaha Ahmed Naaji wuxuu dalkan iyo dadkan u galay marka dhammaantii soo dhawaada dalku waa dalkiinii waa nabad waa barwaaqo waa roob waa rajo fiican yahay dalkiina hooyo ku soo dhawaada والله يسوع نقولي وحين نولا دنياي هراد الله ذن إن شاء الله وبالتي دي على شوغا صور هذا مكروفة كولي ما إن شاء الله هنا كصور ويو وسير غديشة محمد ديرية مريها بلا مستدى إيمان الدالة مريها ورق أجاسم مارو كحجينك أجاسم ياشا qaybaha kala duwan ee hobolada qaranka halkan waxa jooga bahdii hoboladii iyo bahdii ka tirsanay aniga beeshay qabiilkayga adiguna halkan waxa jooga maamooyin iyo odayaal halka kaaga horeeyay kugu barbaariyay madax kugu ahaa iyo kuwii ay galeen oo aad waalid u tahay maanta waxaan ku faraxsanahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xildhibaanada gudoomiyihii hore xildhibaanadii hore xildhibaanada golaha shacabka iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir dhammaan
xubnaha mas-uuliyiinta wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xubnaha ka jooga golaha qaranka ururka haweenka qaranka iyo golaha guud ee hogaamiyaasha haweenka Soomaaliyeed wiil iyo oday iyo hooyo gabar cid maanta ka maqan male waa qaybtii labaad oo soo dhaweyntaada adiga iyo wafdiga daarinta gudoomiyaha Abuukar Mahdi iyo Anwar Axmed Naaji aniga dhowr bilood ka hor aan u korayso wuxuu igu yidhi waxaan fariinkaaga wadaa Faynuus Sheekh Daahir iyo Marisa Karmone inay muqdisho imaadaan ay rabaan Khadiijo ma naga gaarsiin kartaa ugu yidhaahda diyaar baan u ahayn way dib dhaceen haddana mar kale diyaar baan u ahayn ayagoo soo gaarin dalka ayay sheegtay ciidii hambalyada ay kooxda gurmed ummadda Soomaaliyeed la wadaagaysay si gaara inay dowladda iyo shacabka iyo guud ahaan dowladda marka leeyahay gaar ahaan iyo ciidamada ay ugu horeeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha iyo golayaasha labada ayay hawada u soo mariyeen waxaan ku faraxsanahay imaanshahoodii ay Yurub ka yimaadeen inay ku soo hakadeen gurigii fanka iyo suugaanta isboortiga dhaqanka afka qoraalka ee dowladda Jabuuti filimkii hore ee kan hadda soo gabagabeeyeen kii hore waxay ku bilaabeen dalka Jabuuti maanta filimka cusub iyo filashada qaybta leh waxaa lagu bilaabi doonaa jamhuuriyadda Soomaaliya wacdaraha iyo wacyigelintu waxaa baarsan yahayna ummadda Soomaaliyeed inay filanayso baraari iyo bashbash iyo horumar iyo amni lagu naaloodo ayayna ka turjumaysaa maasha Allah Madam Faynuus gudoomiyaha Abuukar fanaanka kale Anwar Axmed Naaji saacadaan aynu joogno annaga haddaan airport taagnayn iyo haddaan tiyaatarka taaganahay iyo haddaan qayb saddexaad oo aan ku soo gabagabayn doonno soo dhaweynta inta aad hoyga aad ka dhegi doontaan magaalada Muqdisho aan la gaarin waxaa kulligeed lagu hogaaminayay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi Ex Mareeye hore ee golaha mursiga Madadaalo madaxweynaha jamhuuriyadda Kuwait ra'iisul wasaaraha Idinka dowladda shacabka idinka kala helin gudoomiyihii gobolka iyo Dubai caasimadda Idinka dalkiinii baad joogtaan caasimaddiinii baad joogtaan 33 sano kadib cid kastoo la soo dejiid waay maanta Faynuus waxaan u malaynaa inta dambana inay sidaas ugu soo guriyo noqon doonaan gurigoodii waayo dalaan dalkaaga ahayn dalan joog waa si gaara saaxiibadii ehelkii dalka aan lahayd waxaan si gaara ugu mahadcelinaa Abaan Buure jaamaareye waa mahadsan waxaa abdullah sameeyaa wixii abtigay aawad مكي عبد الله أحمد دار حسيتو ورياش أبوانك يو إلمها أبيع الدون قوة الضحية يا ورياضة أو دراش الشيء وفنانين في هورين أما وبلد إحنا جوابر الشيء هذا السمين أيام كل جد وواجب أتطبع كله أبيع أحجار إياه وواح كله maareeyahan waxaan ugu mahadcelinaa wax kasii gaara bad marka intaasoo kubbaan joogto bahalkuuma soo kacayo xaba bixi baladka joog dadkina keenta dalku waa noog insha Allah saasaan isku ognahay haddana waxaan sugayay ilaa saacday gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi
maareeye ku-xigeen qaybtii saddexaad sidaasaan ku gudbi doonaa insha allah waa mahadsantihiin maanta farxadeeda lama soo gooyi karo ilaah baa mahad leh oo nabad inagu keenay aniga horta 2 sano ka hor waan imid laakiin Faynuus 3 sano maadaama waddanka ka maqnayd intii aan Jabuuti joognay saacadaha bay xisaabinaysay مرؤون يا يتصح حمر بلا مرؤون حمر يا يتصح الحمد لله إلهي كون نبات كياني وسيدي هور لو يري مام فينوس وطبعا ما علينا قد يجديري وزيرته يا ضمان مدحدي مسؤول السلام عليكم حال قدر أورتا عليكم السلام عليكم السلام أنا قاعد هذا البطل هان بوحشو مركي هذا الكلام اسكو صوب علي habaaroo dhanna waa dhimo baa la yidhi waxaa weeye dhammaan wariyayaasha raadiyayaasha wasiirada wasiirka ku-xigeenka caruurta fanaaniinta ee anigu aan waalidka u ahay wax allaale iyo wixii barnaamijka nagan ka soo qaybgalay oo dhan waan u mahad celinaynaa waxaa kale waddankan anigu waxaan ka maqnaa 36 sano 33 sano 33 sanoba ciil iyo calan ku joogay waddankan joogay waxaan ahaa qaxooti anoo qaran ah oo saale oo saadale baan ka degtay England waxay dhahaaya Faynuus Sheekh Daahire xagee ka timi habar madoow oo sii jeedo Afrikaana bana markuu socdo hal qof baa yarka ku sii dhaga alla waa fanaanadii alla waa fanaan markaas iska ooya marka waxaa la yiri waxaa ogaan kara qofka waddankiisa ka taga baa ogaan kara waddanku qiimaha uu leeyahay qaasa ogaan kara dadkaaga iyo dhulkaaga wax dhaama ama ku gaajood ama ku dharag wax dhaama ma jirto taasaan idin leeyahay oo xaqiiq ah marka waxaan leeyahay anigu dad waaweyn baan noqon waxaan leenahay ilaahay waxaan u barinay ummadda Soomaaliyeed in ilaahay bogooda burcad isu mariyo liisaankooda in malab alla isu mariyo in ilaahay wahabka naga kor qaado inaan gacmaha isqabsano inaan dhulkeena qodano inaan muxuu ahaay dad jira oo adduunka la tartama inaanu noqono markaan calamada saa u fiiriyo calanka Soomaaliya ka waaya ilaa igu soo istaagtaa inaan mataqaana ummadaha aan la jaan qaadno baan ilaahay ka bariyay ilaahay taasaan ka bariyay inaan ummadaha la jaan qaadno oo calankeenu adduunka meel walba saa uga babado oo qiimo ku yeelano oo baasaboorkeenu qiimo yeesho oo inagu qiiman yeelan marka la yiraahdo Soomaaliyan ka imid nala soo dhaweeyo bataasan ilaahay ka baryaya rabbiga raxmaanka taasan ka baryaya aad iyo aad baad u mahadsantiin soo dhaweyntaadna soo dhaweyseen farxad weyn ba ay gashay marka wax kale oo lacagna idin ma siin karo anagu qaxooti baan u nahay laakiin qalbi fiican baan idinku salaamay qalbi fiican oo wanaagsan baan dadkaygo aan ku salaamaya سؤال الوجينا هاي عتقول مرشا قرن عيرسي إنه هاي عتقول مرشا قرن إنتو إلى معانته هاي عليك لا تجاهر هاي ولا كاسا قرن عيرسي إنه هاي عتقول مرشا قرن إنتو إلى معانته هاي عليك لا تجاهر نعم نبض عيك أيتها هاي عقب في قرن وكبح دحل إلى ياجع عدم تهاي في غيرها قرن إلى يوضم عرس تهاي عقل الروح لها قرن عافي ما يحوي هاي قفو عذر هلا ورن إلى عدود هضم تهاي قفو يا ما ورن عدالة وحي تهاي قفل عيلي ما ورن إلى عيسى هضم تهاي ما يوحكبوني عشرين وحشرية هاي انتو على رياء قرن ويسيروا عدوية هاي عندنا الحدا قرن نعم انتو سقفينوية هاي وعيدوا قبضة هاي عرشقنا كوية هاي طبعا يدوى عليها علم الروح لها نعم إلى
وروحا في الانت عشان هو اللي هو اللي انا قاعد